haweeney xaamilo ah oo saygeeda dhabarka ku siday muddo ka badan 5 sano. Si aan ugu galno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share garayso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Calaadan mahadsan idin badan. haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Hiba Sayid waxa ayna maalin kasta dhabarka ku qaadaa saygeeda oo xanuunsanaya isla markaana aan awoodin in uu si iskiisa u socdo. Sayga Hiba Sayid sidan kuma uusan dhalan mana uusan xanuunsanayn markii ay isguursanayeen, balse amar alle oo ku yimid iyo xanuun ka awood batay ayaa keenay in jirkiisu uu daciifo. Sayga Hiba Sayid Khalid ayaa waxa uu horay u ahaa darawal gaari markii ay isguursanayeen ilaa iyo markii dambe uu xanuunsanayay, balse jirrada oo ka dambadatay ayaa Khalid ku kaliftay in uu shaqayn waayo deetana dhul dhaco. Hiba Sayid Khalid xaaskiisa ayaa tala ku caddaatay markii saygeeda xanuunsaday, dhaqaalena uusan jirin, cid kale oo caafimaadkiisa wax kala qabanaysana aanu jirin, oo qoyska dhan ayaa waxa ay wajaheen dhaqaale darro baahsan iyo Khalid oo isbuucii ugu yaraan 2 jeer isbitaalka la geynayo. Hiba Sayid ayaa waxa ay go'aansatay in ay nolosha qoyska dusha saarato iyo weliba daaweynta saygeeda. Waxa ayna duruuftu ku kaliftay in ay dhabarka ku qaado, isbitaalka ku geyso, dibna ay mar kale isla sidii xaafadda ugu soo celiso iyadoo dhabarka ku wado, weliba iyadoo aan markaasi dan ka lahayn bulshada fiirinaysa ee la yaaban. Khalid ayaana waxa uu xaaskiisa u soo bandhigay in haddii ay rabto furiin uu iska furayo, balse ay iyadu ka diiday, una sheegtay in ay u jeceshahay sidii ay u jecleed markii uu caafimaadka qabay, weligeedna aysan ka tegi doonin iyadu. Hiba ayaana waxa ay saygeeda u dhashay 3 carruur ah, sidoo kalena waxa ay korisaa 3 kale oo uu dhalay Khalid walaalkiis oo geeriyooday, waana qofka dhan ee haatan uu qoyska dhani ku tiirsan yahay. Dhinaca kale, markii ay warbaahinta iyo baraha bulshada lagu baahiyay qoyskan iyo dhibaatada haysata ayaa dhaqaale badan loo aruuriyay, iyadoo dad badan ay ku ammaaneen Hiba iyo Khalid isjacaylkooda iyo sida ay Hiba saygeeda muddo ka badan 5 sano isagoo xanuunsan ay u daryeesho uguna samraysay. Waxaana inta badan dadku ay la yaabaan marka ay arkaan Hiba oo wada maraysa isla markaana dhabarka ku sida amaba ku qaadaysa xaajigeeda ama saygeeda oo muddo badan xanuunsanaya, sidoo kalena marar badan ay ku arkaan iyadoo wadooyinka la maraysa, isbitaalna geynaysa saygeeda, maadaama isbuucii ugu yaraan 2 jeer la geeyo, mararka qaarna 3 jeer la geeyo isbitaalka si kaliyaha markaasi loogu dhaqo looguna nadiifiyo.